guud ahaan SSC waxaanu ognahay qurba joogtii in ay dhaqaalihii 25 August maalintii waxa weeye laga saaray rejiimka Muuse Bixi in dhaqaalihii la joojiyay hadii wax la bixiyana ay yar yihiin xilligii ugu adkaaba la galay xaaladdu serious bay taagantay sidee ku dhacdaa in 3 bilood jaamacsiyaad ciidankiisii wixii ay soo diristeen in la waayo sidee ku dhici kartaa in askartii ay furinta inta ka soo baxaan waxay cunaan intay waayaan sidee ku dhici kartaa dawladda soo hadhay wax alaale wax uu Cabdiqaadir Firdhiye dhaqaalahayo oo SSC ay soo dhiibtay oo hadda hayo ma jirto wuxuu la yimaadana waa la arkay inta ay cashuurta la ascaanoodna waa intuu ku grif leeyahay halka ay ku qabo wallahi waxana suustay heestii oran jirtay nafsiba adeege waxnabad ku hurudaba nabar lama filaaniyo naxdin dariis ma noqoteen nasiibka ma kulanteen anna ma iska noolahay huwaney muuqaalkana la kugu dharshay like saar siina share garee meel fog waliba sii gaarsii waa garaad jaamac Ismaaciil oo baroor ooyin afka furtay codkani wuxuu u diray isla groupka ay ku midaysan yihiin jaamac siyaad oo isagu uu garaadkooda uu yahay wuxuu sheegay inay Firdhiye waxba gacanta ugu jirin dhaqaalaha dadkii dhaqaalaha soo diri jiray qurbaha ka soo diri jirayna ay ugu dambeysay 25 August in wax loo soo diro sidaasina qaarkood ciidanka gaajo darteed ay halkaasi iskaga soo yaaceen dawladnimadiini nabadiini sharaftiini iyo karaamadii aad ku noolaydeen nafsigeedii ayaad maalaysaan ee ka dhargameed oo dhan laha kana codkiisa ila dhageysa garaadka iyo calaalkiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كواد iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba Ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillah rabbil caalamiin badka xigtana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha SSC intii codkayga maqli doonta gaar ahaan beeshan hadeer aan la hadlayo ee jaamacsiyaad ninkan idin la hadlayaa waxaan u maleeyaa codkayga inaad fahmi kartaan waa garaajama kara Ismaaciil weeye anigu mar baan hadlaa oo jaamacsiyaad la hadlaa waa markii koowaad ee gole jaamacsiyaad aan ka hadlo sanadka hadda waxa weeye dhow halgankii 28 August ka bacdi barigii halganka aynu bilaabeynayna habeen baynu wada hadalnay habeenka aynu wada hadalnayna jaamacsiyaado go'aan baynu isla qaadanay go'aankaasi wuxuu ahaa oo aynu hoosta ka xariiqnay colaadaas iyo halgankaasi inuu jaamacsiyaad ku dambeyn doono iyo dadka iyagu deegaanka degan ilaa Ceergaabe ilaa muxuu ahaa Farhareeri ama waxa weeye wad garanaysaa reeraha ay kala yihiin innagana culays gaar ah uu inoogu dambeyn doono inuu fuuli doono waxaynu isla qaadanay in aynu culayskaas dhexda u xidhanno oo xabada deegaanka ku dambeyn doonta aynu waxa weeye aynaanu kala xadhin qurba joogtuna waxa amar nagu siisay idinka waxa la idinka doonayaa ciidan iyo calaf annagana waxaan laga doonayaa dhaqaalihii iyo sidii aynu waxa weeye hub aynu iibsan lahayn oo marka hub baynaan haysan hawsha waad ka soo baxdeen annaguna hawsheedu waa ka soo baxnay haddaba maanta halka ay taagan tahay waa halka aan doonayo inaan ka hadlo inaad isgaarsiisaan ay muhiim tahay hablihii jaamacsiyaad ee gudaha joogay waa shaqaynaya iyagu mar walba hawlo caafimaad taangiyadii oo waxa uu dhiseen meeshii lagu hagaajin lahaa wadooyin ay sameynayaan qarashkaasi waa la ascaanood ku socdo hablaha jaamacsiyaad aad iyo aad u mahadsanyihiin waana ugu hambalyeynaya waxgaradkii jaamacsiyaad iyo odayaashiina wadogtina waxa ma hayaan laakiin iyaga waxa laga doonayaa ciidankii iyo calafkii ina hawshooda way qaateen Soomaalidu waxay ku maamaadaa soor baa lagu fadhiyaa sina laguma fadhiyo guud ahaan SSC waxaanu ognahay qurba joogtii in ay dhaqaalihii 25 August maalintii waxa weeye laga saaray rejiimka Muuse Bixi in dhaqaalihii la joojiyay hadii wax la bixiyana ay yar yihiin
waxaa nasiib darro ah in dhulbahanta intuu gurigeyga igu yimaado yidhahda jaamac siyaad qaadhaankii dhulbahanta lagama hayo waxaa nasiib darro ah in jaamac siyaad dhaqaalihiisii gaarka ahaa ee 10 kun ahaa ee beelo isku xukumeen aydan 3 bilood bixin waxaan maanta idin leeyahay maalin hore aan ka hadlay golwadaha maalintaan imtixaanaad ka hadlayna waxaan jaamac siyaadow waxbaynu ku heshiinay fuliya oo golo dhulbahantan Soomaaliyeed ban media idin mari maantana waxaan idin leeyahay oo si gaar ah oo markii kuwaad idin hadlo war halganka war 6 bilood cagaha dhulka ku adkay karta war waxba inaga gaar inoo ah war deegaankeenii baa la jooga war culays baa ina saaran war dagaalku hadduu dhaco haddii 10 nin dhibato oo ACC 5 inaga noqonaya waxaasoo dhan weynu ogeyn waynu ka sii tarsanay weliba raggii aad ku maagayseen ee lahaydeen garaajaamacow waxa weeye ee hawsha aad bilowday ka midha dhali baan anigu ahaa anigu waajibkayga waa ka soo baxay ilaahayna waa ogi idinkuna waad ka soo baxdeen 8% war sidee ku dhacdaa in 3 bilood jaamac siyaad ciidankiisii wixii aad soo dirijteen in la waayo war sidee ku dhici kartaa in askartii ay furinta inta ka soo baxaan waxay cunaan intay waayaan sidee ku dhici kartaa waxaan anigu idin leeyahay walaw aanan jeclayn warar badan inaan media mariyo aan idin kalsoonayn oo aan ka baqayo inaad waxa weeye dad badan oo iska muxuusay baa jiray inaad media soo gelisay si adag bal dilaha laakiin maani bortigay wuxuu yahay muhiimadeedu waa tahay jaamac siyaad wixii aynu ku ballanay inaad fulisaan inaad dhaqaalihii soo daysaan oo reer walba lacagta lagu xukumay uu keeno waa haddii aad doonaysaan guushii aad gaadheen oo ruboodka u ahaydeen inaad hanataan waa haddii aad doonaysaan dalkiina iyo magaciina iyo sharaftiina inaad ilaashataan waa haddii aad doonaysaan kaftankan aad tiraahdeen maqaaxii baanu fadhiisanaayo hadda annaga u kaftan badan oo ugu muxuu ahaa hadal fiican oo annaga nala dhegaystaa ay idiin sii socoto xilligii ugu adkaa baa la galay xaaladdu serious bay taagantay duulaamo adag baa laga baqaya sida xaalku noqonaya ilaahay baa og haddayna weekend gudihiisa dhaqaale ku soo bixin anigu caawa warning baan idin siiyey cid la eedayn karaa iyo marka wax kharimaan cidda eedda yeelanaysa waxay noqonaysaa guud ahaan dadka oo dhan gaar ahaanna waxay noqonaysaa dadkan amarka siiyey inagu aynu kow ka ahayn aynu shafka u garaacdeen aad tidhaahdaan wax allaale wixii dhaqaale ku baxaya 10 sano ha gaadha annaga la diyaara reeryada ha la iska qaado annana aanu idinku lahayn waryaara haddeen war go'aanka ma ka bixi kartaan haa war waxaan inaga inagu dambayn doonaan haa war waad ogtiina deegaankeenna hadhowto waxa weeye waxyaalo badan baa iska dhici doona garaajaamacow seexo waxa weeye dhaqaaji reerka hogaami dhaqaalaha ka bixin raggii ugu lahaana waxaan waa maqlayaan haweenkana meel kasta joogan waa amaanaya anigu haddeen wax aan idinku sheego oo waxa weeye aan idinku dhaliilo ma hayo laakiin waxaan dhalin idin ah in 4 bilood dhaqaalihii jaacsi aad reer waliba guntiga ku haysto nin walba waxaad guntiga ku haysato oo waxaad bilis xun u cuni doonto marka laascaanood lagu soo noqdo ee deegaanka laydinka qabsado ee laydin jebiyo ee sidii doonada ka yeelo nin walba lacagta dib u dhigatay meeshaad ku cunaysaa adiga iyo sidee kugu dhadhamayso war maanta dhaqaalaha la isku qabsanaya ciidana waa joogaa calafna waa joogaa dhaqaalihii soo dira dowladda soo hadhay wax allaale wax uu Cabdiqaadir Firdhiye dhaqaalaha hayo oo ACC ay soo dhiibtay oo hadda hayo ma jirto wuxuu la yimaadana waa la arki inta ay cashuurta laascaanoodna waa intuu ku grif leeyahay guud ahaan ACC haddii alla idmo wafti waa loo soo dirayaa dibadda maray doona oo lala hadli doono idinkana laakiin jaacsiyaado waxaan idinka codsanayaa haddaan garaadkiina ahay ragga askarta inaad xoolo lacagtu soo dirtaan u soo daysaan 4 bilood waa markii koowaad aan sanadka dhowdhow idin la hadlo wali jaacsiya saa loo ma hadlin waa koow intaasaan idin leeyahay anigu waxba idin kama rabo aniga waxba ima siisaan waxba idin kama rabo ragga waxa weeye aynu dagaalka gelinay aynu dabkii xaabada ku shidnay wixii aynu ugu shidnay ee idinku aad kow ka ahaydin bal idinka doonaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh